shan hab oo aad freelancing lacag uga samayn karto. Waxaan rabaa inaan kula wadaago muuqaalkan shan hab oo aad freelancing lacag uga samayn karto waliba habab fudud ah oo aan isla muuqaalkan dhexdiisa rabo inaan kugu tuso qaabka loo sameeyo meesha laga sameeyo website-ka aad tagaysid sida u sameynaysid iyo dhammaan sida aad xirfado fudud oo aan ahayn wax mataqaanaa u baahan xirfad tiro badan oo haddaba aan online ku tusi karo qaabka aad u samayn kartid baad samaynaysaa. dadka freelancing marka hore aan wax yar dadka aan fahansanayn ama markii ugu horreysay ay tahay freelancing waxa weeye in aad xirfad ama shaqo online ka aad ku qabato adiga oo u qabanaya client ama cid aadan shaqaale u ahayn. qofkaad meel isugu imaanaysaan marketplace ama website kaas oo kale marka meel waxa jira la isugu yimaado marketplace waan arki doono qofkan marka iyo adiga contract baad gelisaan shaqada inay u qabatid kadibna lacagtaada sida ku qaadanaysaa si xor ah marka u shaqaysanaysaa. marka freelancing waxa weeye inaad si xor ah u shaqaysato adiga oo adduunka meesha adduunka ka jooga inaad dad dunida meesha doonaan ka jooga inaad la shaqaysid oo adoo Soomaaliya jooga kala wax la shaqayn kartaa dad Yurub iyo Mareykanka jooga oo client ah. marka freelancing waa sidaas muuqaalkan marka waxaan uga hadli doonaa waxyaabo fudud oo aad u yar oo adigu aadan aaminin marka aad aragto dad sameynaya qaabkan oo haddana lacag uga sameynaya oo provide karaynaya service noocaas iyo sida loo sameynayo waliba baan arki doonaa. haddaba meelaha lagu sameeyo marka freelancing way tiro badan yihiin laakiin midka ugu weyn uguna caansan baan su'aalaha ku soo qaadanaynaa muuqaalkan oo la yiraahdo Fiverr baan tagayaa website-ka la yiraahdo kadibna isagaan su'aalaha ku bixinaynaa. Fiverr markaa ku qortay Google ka u horeeya ku dhufo. Fiverr marka sidaan u eegay waa website freelancing marketplace ah. halkan waxaa ku qoran dhammaan waxyaabaha graphic design oo kale digital marketing writing translation video animation xirfad kasta oo jirta category-geeda halka ka baari kartaa waxaan oo dhan dad baa provide karaynaya oo qabanaya. markaa ku dhufato logo design oo kale waxaad arkaysaa hoos bay ka soo baxayaan dadkan. marka gig baa la yiraahdaa page-ka noocaan oo kale qofku markuu dhisto oo waxaad dhisanaysaa meel page ah sidaan oo kale ah oo aad ku qoraysid qaabka shaqada u qabanaysid waxa aad qabanaysid. marka giggaas oo kale adiguna dhisan doontaa marka aad samaynaysid. marka xirfadahaas way tiro badan yihiin meesha lagu qabto. marka website-ka markaa soo gashid adaad si fiican u dhex baari karaa oo xirfadii waxay sameynayaan oo kale aad samaynaysaa xirfadda aad ku fiican tahayna waa qabanaysaa. laakiin muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay inaan shan hab oo waliba adigana hadhow tusaale ku noqon doona oo si fudud loo samayn karo baan ku bilaabaynaa si aan tusaale uga bixino. waxaan ku bilaabayaa marka brand name for business baan ku qorayaa halkaa xaggaana waxaan ku qorayaa brand name for business. waxaan rabaa marka inaan ku tuso brand name for business dadka shaqadan qabanaya waa maxay. marka waa magaca ganacsi inaad u soo saardhid dad waxaa jira raba inay ganacsi cusub bilaabaan marka waxay raadinayaan magacaas kaliya adigu halkaan rabtaa inaad inta soo baartid inaad la wadaagtid qofkii tusaalahan oo kale 10 magac oo kale ama 20 magac oo ka turjumaya businesskooda inaad brand name-ka u raadisid inta kaliya service-kan lacagta ku qaadanaysaa. dadkan marka sidii oo kale sameynayaan waa tusaalayaal brand name for business kaliya waan ku qornay waxaan soo baxay dadka shaqadan qabanayay. tusaalahan oo kale gabadhan $20 bay ku soo qoratay $25 $100 way kala tiro badan tahay inta ay service-ka ay qabanayso ku xiran tahay. marka aan sii dhex galno faahfaahinta okay giggeeda ama page-keeda waxay ku qordhay saddex balan bay u sameysay. marka tusaalahan oo kale basic standard iyo premium oo $250 ah. standardka $150 iyo basic oo ah $20. marka halkaan ku kala duwan yihiin waxa ay qabanayso. tusaalahan oo kale marka ay $20 ay ku qoratay waxay raadinaysaa 10 magac kaliya u raadinaysaa iyo .com domain ah oo magacaas inuu bannaan yahay domainkiisii ah
waana wax fudud oo markuu qofku raadinayo marka magacyadan iyo sidaas haddaan ku tusaya isla halkan muuqaalka dhexdiisa intaan ku tusin marka aan standardkeedan arko standardkuna waxa weeye intaan ay ku daraysaa trademark bay u fiirinaysaa in mataqaana uu diiwaan gashanaya magaca iyo premiumka oo slogan iyo logo iyo waxa ay ugu darayso marka waa wax aad u fudud oo hadda qof kasta samayn kara waxaane maxaa la samaynayaa marka waxaa samaynaysaa marka inaad u raadisid magac waxaa tegayaa marka website brand nameka generate gareeya ama business nameka halkaan tegayaa google-ka waxay ku qoraysaa marka brand name generator horey baan ugu qoray awal brand name generator marka ku qortid kan kuu soo baxaya u horeeya ee la yiraahdo namelix baad ku dhufanaysaa kuwa kale marka way jiraan laakiin isaga hadda ugu fiican kaay marka ku dhufatay halkaan marka waxay ku qoraysaa client-ga businesskiisa magac wuxuu ku saabsan yahay marka tusaale ahaan oo kale هذا digital marketing agency oo kale waan hore mar weyta u galiyay tijaabinay marka waxa jirtid baa kale tusaale ahaan oo kale clinic baa ka dhigi karta waxa ka dhigi kartaa lawyer oo kale okay marka halkan waxa ka sii daranaysa marka waxa qaabka name-ka style-ka magaca soo noqonaya ma brandable ba sida Google iyo Rolex mise waa waxay mataqaanaa non English words ama isaga laftiisa inuu ku raadiyo inuu u diin kartaa auto oran kartaa marka next baa leedahay kadib waxa leedahay ii raadi marka low iyo medium iyo high labada ka doontid baa ka dhigi kartaa marka ku raadiyo marka okay uu ku soo saaray waxaan oo dhammaan waa magacyo aad qaadin kartid oo brand ah oo aad client-gii shaqada ku diray aad la wadaagi karto 10 magac ama 20 magac baad u soo qoraysaa kadib shaqadii waa dhamaatay intaas $20 iyo $20 iyo $20 intaas ku qaadanaysa waa inta kaliya aad baa lacagta ku qaadanaysa marka ugu diraysid marka tusaale ahaan kale service-ka waxaad ugu diri kartaa sida hadda arkayna gabadhan standardkeeda kale waxay sameeynaysaa trademark u raadinaysaa trademark check marka trademark check ba samayn kartaa oo tusaale ahaan kale waxa oran kartaa trademark checker baa oran kartaa trademark checker bad ku qoraysaa Google kadib website-ka u horeeya uspto.gov baan soo furayaa kambanigan marka magacaan marka aan u soo helay client-ga inuu ka diiwaan gashan yahay Mareykanka United States Patent and Trademark Office-ki way marka halkaan aan ku qorayaa marka magaca tusaale oo kale client-ga magaca oo aan u soo helay magacyada mid kamid ah Mirova oo kale Mirova halkaan aan ku qorayaa Mirova halkaan aan klik leeyahay marka client-ga marka waxaan waxa soo baxay marka kuma jirto marka magacaan waa safe oo waa magac aan horey loo diiwaan gelin trademark waxa weeye cusub oo aan u soo helay weeye marka magacyada saas aan marka ugu soo baaraya marka qofku iibsado waliba standardka $150 meel marka uu bixiyay tusaale ahaan oo kale oo aan tii hore xitaa khasab ma aha inaan u raadiyo trademark sida halkan ay samaysay oo kale basic waxaan u raadinayaa kaliya aniga .com-keeda iyo waxaan fiirinayaa iyo magacyadii inaan raadiyo .com-kan halkan oo kale ka fiirinaysa isla Mirova baan waxaan u raadinaynaa inuu domain name-keedu bannaan yahay marka Namecheap oo kale tagay ama GoDaddy baa ku qoraya GoDaddy markaan ku qoro magacaan businesska inuu bannaan yahay domain-kiisaan raadinaya marka maxaan u soo helay hadda Mirova waxa soo Mirova halkan ku qoraya marka mirova.com raadinaya inuu bannaan yahay okay mirova.com marka ma bannaana waxa weeye saan oo kale hadda markuu soo baxdo waxa weeye ma bannaana oo magac mataqaana hore loo isticmaalay marka wuxuu rabaa inuu isla qoradii iska lahayd magaca iibsatay in lagaaga iibiyo buu rabaa inuu ka mataqaana shaqada ku qabto marka annaga marna waxaan rabnaa magac bannaan marka saas oo kale waxay helaysaa marka kuwo domain-kiina bannaan yahay haddaa sii baad intaasoo waxa haysataa ayagana wuxuu ku generate garaynaya intaasoo magac marka toolkaas saas oo kale uga faa'iideysan kartaa adiga laftiisa marka u baahan tahay shaqadaana waa ku qaban kartaa taas marka waxay ahayd business name generator-ka ama business name inaad ku qabato freelancing ku samayso adiga oo halkaan dib ku soo dhisanay marka kaliya gabadhan kaliya tusaale soo qaatay laakiin waxa way badan yihiin dadkaan oo dhan baa shaqadan qabanaya
waa halkaan ay ku soo qornaysaa 31,742 surface adeeg baa halkaan oo dad bixinaya jira oo qabanaya inay brand name dadka u raadiyaan adiga marka dadkaas aad ka mid noqon kartaa marka aan muuqaalada dambe oo aan si fiican u sii galno freelancing-ka waxaan arki doonaa in competition-ku inuu yar yahay baan waxyaabaha la iska eegi doonaa ka mid ah oo markay saan oo kale xoogaa u badan yihiin inkastoo hadda shaqadan shaqo fudud tahay oo brand name generator adiga inta kale hal gig ma samaysanayso intaasoo gig baa ka samaysan kartaa halkan oo dhowr surface oo shanta hadda tan waa tii koowaad afarta kale aan soo wadana waa qaban kartaa waana waxa aad u fudud mid kasta sida middan hadda ku tusaana mid kasta rabaa inaan ku tuso qaabka u samayn kartid marka saasaa u provide garaynaysaa dadkan oo dhan marka shaqada ay qabanaya ilaa qaar ay lacaga tiro badan ku qabanayaan lacaga tiro badan bay ku qabanayaan okay aan u gudubno midda labaad habka ama qaabka labaad habka labaad waxaa la yiraahdaa file conversion waa hab kale oo aad u fudud oo aan rabo inaan dhalinyaradu ay ku bilaabi karto inay online lacag uga sameeyaan freelance file conversion baa halkan ku qoraya file conversion marka waxa way faylasha in la isku bedelo PDF waxa weeye PNG JPG JPEG noocyada faylasha ku soo baxaan oo dhan in la isku bedeli karo okay gigana marka fiirinayna ama qofkan sida uu shaqada u qabanayo way yartahay soo ma jeedo 1740 competition aad u yar yahay surface scan file conversion waana waxa aad u fudud in la qabto tool baa ku qabanaya hadda aan ku tusayo wax fudud weey okay kan oo kale marka tusaale aan ku dhufanayna qofkan oo kale qofkan wuxuu yiri I will do any file conversion compression video cropping and trimming waxa weeye shaqooyinka marka uu si tira ballaarsaday file conversion ka anigu hadda raadinay laakiin waa wax isku dhow waxa dhan tool baa ku qabanaya compression ka waxa weeye in la yareeyo space storage ka file ku qaadanaya in la soo yareeyo oo intaas oo MB haduu ahaa KB loo soo bedelo ama soo yareeyo video cropping waa in la jaro iyo trimming oo la kala jarjaro muuqaalka marka waxaan waa video editing trimming ka waxa uma baahnid isaga ku darsaday okay shaqadan marka isaga ku qabanaya halkii file $5 ku qabanaya standard kiisa fiiri saddexdii file $10 $20 shantii file saas way marka okay marka qofkan aan tusaale ku soo aragnay sidee marka u sameynaa sidee u samayn kartaa marka shaqadan oo u provide garan kartaa waxa sameynaysaa marka waxaan tagayaa website kan tagayaa la yiraahdo TinyWow waa Google ku qoraysaa kadib sagaad ku dhufanaysaa marka ku dhufato wax kan marka website kan waxa ku bedeli kartaa any file from PDF to image to wax kasta PDF ka tusaale ahaan marka hadda dul saaro PDF ka la edit garan karaa PDF ka waxa bedeli karaa waa JPG ga PDF loo bedeli karaa PDF ka waa la isku merge garan karaa la isku furi karaa okay tusaale ahaan kale halkan image ka maxaa la sameyn karaa background removal buu ku sameyn karaa wuxuu sameyn karaa profile photo maker macnaha wuxuu gelin karaa goobinta yarta profile ka email profile saar karo kaaga dhigi karaa remove person from photo qof kugula jiray sawirka laga saari karaa oo kaliya baa lagu soo reebi karaa anything wax kasta buu shaqadan ma taqaanaa lagu qaban karaa waxa weeye website kan toolkan oo la xiriira file conversion waa kana trim video wixii hadda compress video wixii hadda aan soo arkaynay oo sameynayay ninkii hadda aan dul tagnay giggiisa provide gareynaya compression bay sameynaya markuu lahaa iyo trim baa sameynaya waa kuma waxa halkan qaban kartaa marka shaqadaas marka giggaas oo kala provide gareynaysa kadibna TinyWow waa imaanaysa wana free shaqadan aad dhan oo ku qabsan kartaa marka saasan marka file conversion ka uga gudbinaa waxaan u gudbinaa habka saddexaad ee aad sameyn karto habka saddexaad waxa weeye business creating business cards marka waxaan halka ku qorayaa business cards okay business cards marka kaararka businesska ama ganacsiga baan rabnaa inaan sameeyo marka dadkan oo dhan baa waxay sameynayaan sidii waxa ka qaadan kartaa marka fikrad qaabka u sameynayaan qofka surface marka rabtid inaad sameysid ama gig sameysid oo kale qaabkan oo kale aad Fiverr ku sameysid dadka waa la baaraa waxay sameynayaan tusaalahan oo kale qaabka pricing ka say u sameynayaan oo kale say labadan mataqaana saddexdan hadda wuxuu sameeyay qorshe ama plan oo lacagta loo bixin karo iyo waxyaabaha mid kasta uu ku kordhinayo iyo lacagta mataqaana ku bixinayaan dadku marka waxaas oo dhan waxa ka fiirsanaysa marka qaabka loo sameeyo marka business card baad provide gareynaysaa si loo sameeyo see u sameynaysaa marka hadda business card marka waxa ku sameyn kartaa Canva website kana tagayna marka halka wax ku qoraa Google Canva kadib soo fur
kadib halkaa waxaa ku qortaa marka business card kadib oo kale business card templates bay helaysaa tiro badan oo nooca doontida wax doonta aad ka bedeli kartid okay kan oo kale hadda imaanaya marka kan marka waxaa jira canva kan oo kale hadda calaamadda hadduu kuu saaro kale waa paid waa qaybtiisa lacagta weeye marka hadduusan calaamadda lahayna waa free oo la degi kartaa marka waxaa samaynaysaa account baa laga samaystaa marka hadda aniga account baan ku leeyahay sida aragtaan account baan ku leeyahay marka account baad ka samaysanaysaa kadib waa free intiisa freega baana badanba waana website si fiican mataqaana waxyaabo badan loogu samayn karo design graphic design oo dhan baad ku samaysan kartaa okay tusaale ahaan marka kan oo kale aad ku dhufatayba marka saa u dhufatay marka business namekii waxa weeye aan iraahde kaarkii waxaad doontid baa ka dooran kartaa mid baan ka dooranaysaa kaa ka doontid baa marka isticmaalaysaa marka waxaa leeyahay customize this template oo kale hadda kan oo kale marka sidaa ku geey marka meesha dhidka waxa samaysaa marka waxaana bedbedelaysaa waa drag and drop waxaad doontid ka bedeli karaa kamera magaciisa oo kale waxaa ku qoraysaa qofka client-iga ku diray waxa weeye magaciisa halka ku qoraysaa company wixii dhan baa ku bedelaysaa marka business cardka qaabka loo design gareeyo aad u fudud yahay inta un baa xogtaana bedbedelaysaa qofka u baahnaa qaybtiisa kalena waa kan wejigiisa labaad kaarku laba dhinac buu leeyahay marka saasaa u samaynaysaa business card kadibna saasaa ku shaqaysanaysaa iyo aad Fiverr-ka giga ugu soo dhisaysaa kadibna dadka ugu samaynaysaa client ugu samaynaysaa aan u gudubno kan afraad waa samayn kara waxa weeye logo design inay samaysid logo design waa shaqo aad loogu baahan yahay maalin kasta ama company cusub baa la furaa ama brandkii hore ama companygii hore laga bedela waxa company baa wax laga bedela logodii hore marka waa baahi markasta jirta logo design markaan iraado hadda aad bay u badan yihiin dadka provide gareeya shaqadan qabta waa 210,100 bay hadda Fiverr ku jirta kadib waa soo furaya mid tusaale ahaan midkaan oo kale si u samaynayo kan uu ka maqan yahay okay kan oo kale aan fiirinayaa okay marka saan gigiisa waa kan $5,000 ku qoray basic nidaam pricingkiisa ugu hooseeya waa $5,000 wax uu qabanayna waa kan 5 days delivery way standardkiisa waa kan premiumkiisa waa kan saas oo fiirin kartaa marka dadku waxay sameynayaan qaabka mataqaana wadadka competition kula gali lahaa adiga marka waxa la rabaa inaad si aad wax ka qurux badan u samaysid waxay sameynayaan oo kale ama lacagta warqis sidoo kale inaad iyagana sida aad daartid okay marka looga u sameynaysaa adiga looga marka wax meelo badan baa lagu sameyn karaa sida caadiga Adobe Illustrator ka xasba lagu sameyn karaa Canva hadda aan tagayno kale waa lagu sameyn karaa laakiin anaga mid kale aan tagaynaa waxaan tagaynaa website la yiraahdo Render Forest website-kan baad ku sameynaysaa marka website-ka marka shaqo badan baa lagu qaban karaa oo waa ujeedaa videoskii waxa weeye inay mataqaana design website waa mataqaana design waa ka soo qaadan kartaa oo ku samaysan kartaa logooyinkii wixii oo dhan mock-ups waa ku samayn kartaa laakiin anaga hadda loogaan u soconay inaan samayno marka xaggaan marka wax kaaga soo baxaya dhammaan logooyinkii loogaad leedahay kadib kaartid baad ka dooranaysaa tusaalahaan kale ama halkaan waxaa leedahay start free now kadib halkaan looga leedahay kadib halkaan uu keenayaa wuxuu ku leeyahay geli magaca businesska marka tusaalahaan kor client-iga u shaqeynayay oo ay diray loogada magaciisii business name-kiisii marka tusaalahaan kale businesskiisa wuxuu ahaa Mora oo kale magaciisa kadib looga u sameyn baan leeyahay Mora tagline-kana marka waxa weeye slogan-ka ama eray business marka waa optional waa ka tagi karaa description-kana xoogaa wuxuu ku saabsan yahay company tusaalahaan waa digital waxaa ka soo qaada inuu yahay digital marketing agency kadib wuxuu ku leeyahay waxaad doorataa style logo style-ka ma way kala duwan yihiin line style baa jira solid nooc marka ama anaa ku doorayo ku leeyahay marka adigu u door baan leeyahay iska soco next okay marka magaca aan qoranay Mora logooyinkan oo dhan buu sameeyay marka midda doontid marka ku qanacdeed baa hadhu soo qabanaysa wuu wadaa wali saasuu wadaa waka Mora okay marka
meelo badan baa lagu sameeyaa saas oo kale waxa sameey freelance waxa tagi ka dhayo kale kii hadda aan tagaynay kale Canva kadib meesha hadda aan ku qoranay baa waxa ku qoraysaa logo meesha business card ku qoranay baa waxa ku qoraysaa logo xagga business card ku qoranay waxa ku qoraysaa logo design logo marka waxa dhan waa logooyin aad bedelin kartid ka bedeli kartid magaca marka waxay la xariiraan baa si baar kartaa daa u baahanta marka si dhex gashid okay aan gudubno marka kan u dambeeya oo shanaad waa video intro ama YouTube video intro oo kale aan ku qorno YouTube video intro YouTube video intro marka dadka profile gareynaya waa 32,245 surface baa halkan ku jira waa kuwan tusaalayaashii wuxuu ku leeyahay marka intaan oo kala soo qoranaysaa diggaana samaysanaysaa digga marka si loo sameeyo muuqaal baan ka samayn doonaa muuqaalada dambe ah oo full tutorial ah okay waa kana marka pricing saan u soo habaystay see marka u samaynaysaa adiga marka waxa weeye YouTube intro ama YouTube intro iyo outro waa isku mid labada waa kala duwi kartaa marka si ay u soo sameynaysaa waxaas oo dhan waxa sameyn kartaa marka sidoo kale custom meesha la yiraahdo Canva wax ku sameyn kartaa Canva hadda kan mid wax ku sameyn kartaa YouTube intro oo templates beelisa kadibna aad design gareyn kartid sidoo kale website kan aad ku tusaya waxaad ku qortaa Google Panzoid ka u qorayo way waa kan marka halkaanaad waxaan oo dhan marka waa waxaad bedeli kartid waa ku sameyn kartid maxaan idhahdaa intro aad ku samaysan kartid marka website-kan waana la digi kartaa marka saas u samaysanaysaa hawshan waxa weeye shantiina saas ay inoogu dhameystiran yihiin oo surface aad sameyn kartay kuwa kale inta ka badanna waan tusaale inta soo qaadanay laakiin sida aad u jeedaanba marka website-ka soo dhex gashid waxaad helaysaa intaas oo barnaamij aad sameyn kartid marka barnaamij baad ka dooranaysaa waxa weeye wax limit ah oo the sky is the limit meel kasta waxa weeye wax kasta aad taqaan business ka kana business plans ka kale financial consulting level wax kasta adigu aad xirfado aad lahayd oo dhankaan aad ku profile garan kartaa adigoo aan ka sugin shaqo wadanka ama cidda marka meesha aad joogtid oo ka sugan tahay halkaan aad ku shaqeyn kartaa online marka xirfadaada la soo gelisay waliba shantan hab waa shan hab oo adigoo xitaa xirfad kala lahayn aad inta hadda aad sida inta sameynayay si baarbaartid oo si daba gashid aad profile garan kartid sida marka loo samaysto diggaan ama meeshan oo kale loo dhistana oo iyo sida la isaga diiwaangeliyo laftigiisa Fiverr la isaga diiwaangeliyo iyadana muuqaal la sameynaya laakiin commentiga ku soo qor oo soo sheeg mataqaanaa danaynaysan si aan uga soo sameyno muuqaal tiro badan freelance-ga playlist gaar ah oo sameyn doona muuqaalada marka hore aan soo sameeyay saas oo kale oo soo daawan kartaa muuqaal channel-kan waxa uga hadlaa sidii saxanba online business-ka iyo hababka kala duwan online lacagta looga sameeyo waliba qaababka legitimate-ka ugu habboon uguna saxsan marka muuqaal playlist-ga waa halkaan oo kale ku dhufanaysaa marka waxaad ka baari kartaa koorsooyin free ah jira aan soo sameeyay waxaa jira mataqaana muuqaalad noocaas oo affiliate marketing oo kale waa kan YouTube oo kale iyo kan hadda freelance-ka iyo hadda muuqaalkii wada freelance-na weeye saasa marka muuqaalada dambe hadda soo socdaan freelance-ka raba inaan u badiyo si mataqaana aan xoogaa dhalinyaradu qaabka u fudud aan isleeyahay way ku bilaabi karaan maadaama aan freelance-ka lacag u baahnayn inaan ku bilowdo waa halkaan oo kale iska diiwaangelinaysaa freelance kadibna xirfadaha yararka hadda aan ku sheegayo kuwa kale oo tiro badan baa samayn kartaa kadibna waa profile gareyn kartaa muuqaalkana waa intaan uga baxaynaa waa mahadsantihiin